ودين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد إلهي ومهازك سبحانه وتعالى إنكو كل مية مناسبة دان بركيسا مناسبة دان عاو وجودنا بوسيدة بورك إني كم وقته وترتنكي أساسي مدد رسول كنواو كسو السعودي هولودين وأها أما وقدومين جري أستاذ جيدي أحمد محمد جامع إلهي سبحانه وتعالى هكذا المريو برنامج كان وحسوج رأيه فربضا هداها يدقنك تعلينتا ثقافة جود يسدحكل كدلنيرات أو حين هلكن وشوقنا ترتن كان آتك وقروح بدن ليرادو أساسي oo aan ugu talagalay in ardaydu ay fikradooda iyo casharadii macallimiintoodu bareen iyo xirfadahooda ay markaa isku weydaarsadaan tartan wuxuu marayaa sanadkii shanaad buu maraya oo waxa weeye baratankaasi wuxuu soo socday 4 sano oo sanadkan aan caawa xafladiisa u fadhino ka horeysay waxaan ugu talagalay ardaydu inay xirfadahooda ay ku soo bandhigaan fikradii igu abuurayna waxay ahayd bulshada aan u shaqeeyo maadaama aan ahay macallin baraka ah dugsiga sare Imaam Nawawi Garawe waxaan arkay ardada in ay ku jiraan awoodo badan kuwaas oo ay ka mid yihiin hal abuurka suugaanta iyo xirfadihii kala duwan oo markaas ay ardadaasi ka barteen dugsigooda sidaas awgeed waxay keentay in aan tartankan ardada aan dhex dhigno oo aan u furno markii uu horeysay wuxuu ku bilaabmay dugsiga dhexe buu ku bilaabmay sanadkii koowaad halkaas uu ahaa sanadkii labaadna halkaas uu ahaa sanadkii saddexaad dugsiga sare baa ku soo biiray dugsiga dhexena waa uu ku jiray isaguna waa uu la socday sanadkii afraad sidoo kale hadda laakiin maadaama sanad dhaweyd uu tartanku baaqday oo dhexda ka maqnaa oo ay xaalado xagga caafimaadka ay bulshada dhanba soo food saareen hakad ayaa halkaas kaga yimi sanadkii u dambeeyay ayaa markaa in aan dib u soo koriyo barnaamijkii aan dib ugu furay dugsiga sare baana ku bilaabay sidii ay hawshu iigu adkayd awgeed baa waxay keenaysay in dugsiga sare ay ka qayb galaan dugsiga sare oo awal galaasyadiisu ay yaraan jireen laakiin kobac iskoolka ku yimi awgiis iyo tartan ay bulshadu waxbarashada ugu jirto iyo sida waxbarashada loo fahmay ay keentay markaa inaan soo koobo taas oo ay ka qayb galeen 8 fasal 8 fasal oo ahaa 4 gabdho ah oo dugsiga sare ah iyo 4 wiilal ah oo dugsiga sare ah wax kasta oo markaa la soo baratamayo sida la isu soo arkayba guushii markii u dambeysay waxay soo gaadhay 4 fasal inay isugu yimaadaan 4 fasal oo waxa weeye fasalna oo form 2 ahaa labana ay ahaayeen form 4 galaasna oo form 3 ahaa kadib waxaa dhacday in haddii ilaahay ku ron yahay ay ka soo baxaan saddexdan fasal oo halkan ka muuqda waa 2 form 4 ah iyo galaas form 2 ah galaaska koowaad oo kaalinta koowaad galena wuxuu ahaa gabdho form 2 ah galaaska kaalinta labaad galena waxay ahaayeen wiilal form 4 ah kaalinta saddexaadna waxaa galay gabdho form 4 ah marka tartankaas wixii aan ardaydaas ugu talagalnay iyo macallimiintii aadka waxa weeye su'aalihii dee lagu loolamay qayb ka ahaa oo iyagana aan ugu talagalay in aan waxa weeye ilaahay baa wax abaal marin kara ee dee jacaylka aan bulshada u qabno awgiis aanan wax weyn meeshii keenin laakiin muhiimaddu ay ahayd in aanu sii dhiirigelino macallimiinta iyo ardada intaba caawa marka waxaynu u fadhinaa oo aan ku furayaa haddii ay ku ron yahay xafladeennan asaasi ee afmeerka sanadka shanaad waxay tahay in uu tartanku inoo furan yahay xafladiisu ay inoo furan tahay macallimiintana aan aad u soo dhaweynayno jaamacadda hoolkan quruxda badan ee aynu ku qabsanay qaybta ka ahayd oo uu madax ka yahay qaybta tan ustaad Cabdiraxmaan Bilaalna aan iyadana aad uga mahad celinayo macallimiintana aan aad uga mahad celinayo marka waa inoo furan yahay ardadu ha soo dhawaadaan macallimiintu ha soo dhawaadaan aad ayaa u mahadsantihiin halkaas ayaan kaga baxayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan u salaamayaa ardada inkastoo ana waxaan sheegi lahaa garanay maanta caawa waxaanu ka soo qayb qaadanaynaa xafladda tartanka asaasi gudoomiyaha mutaqaanay tartanka oo ugu horeeya ayaan salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxa weeyaan oo wax aad loogu farxo waxaan ku bogaadinayaa ustaad Axmed Maxamed Jaamac hawsha aad ka adag oo soo hayay isagoo oo kaliya isku xilqaamay isagoo maaragtay
cid kale wax kaga raadinayn inuu hawsha inta leega uu qabto kaligiis gudoomiyaha agaasimaha waxaba isaga tartanka ka ahaa mar labaad ayaan waadiga dugsiyada waxanahay wanada maxallinka waagi baryaba ubax laga waraabsho waxaan ku wardiyeynaa wadankiina wax u barta oo xambaara waajibkiina waasan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago wadankiinu waa wadnihii jirkiino waraabinaya dhiigo ku wardiyeyna horta aniga iskuulka inta joogay oo dhan waxa la qabsaday inaan markaa soo istaago nashiida carabiya ama yani wax ardayda interesting u sameeyo ka soo jeeday marka maanta intaan nashiida soo jeedinin waxa rabaa inaan wax yar waqtigeyga ku qaato oo wax qalbigeyga ku jiro dhan in la wadaago iskuulkayga aad baan igu xiisay macallimiin ha ahaato arday ha ahaato waxaan aad ugu mahadcelinayaa macallimiintaydii oo maanta heerkan soo gaarsiiyay mahadsanidin macallimiin kulligiin waa idin jeclahay kulligiinna waa idin xiisay ma malayn kartaan farxadda maanta aad dareemay markaa xagga soo istaagay iyo saa ugu xiis waxaan moodaa inaa gurigayga yani guri aan leeyahay oo kale inaa joogo yani inaa gurigayga ka maqnaa u soo laabtay oo kale u faraxsanahay saa iniigu xiisay 11 sano ku dhawaad baa soo dhiganaya Nawaawi maamul Cabdidaahir maanta ma joogo waxa jeclaan lahaa inuu joogo oo si gaar ah ugu mahadceliyo 11 sano aan soo dhiganay asaga maamulka ka ahaa ma amal buna ii noqday nashidadeeda horta maanta yani nashida waxbarasho ku saabsan inay soo jeedi waa jeclaan lahaa laakiin waxaan soo jeedinay maadaama Ramadaan afka nagu soo hayo nashida Ramadaanka ku saabsan kulligiina waxaan leeyahay Ramadaan Kariim Ramadaan Mubaarak oo hormaris ah يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق ضال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان يا حبيب رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان وما سنتين أرضي ذي معلمين سيدة أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد السلام waxaan u mahadcelinayaa inta madashan ka soo qayb gashay macallimiinta marti sharafta ardayda maamulka madaxda dhammaantiin waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sida sharafta badan aad noo dhageysanaysaan barnaamijkan uga soo qayb gasheen haddii aan intaa ka soo gudbo waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa ustaad Axmed Maxamed Jaamac oo ah gudoomiyaha tartankan gabagabadiisa ay caawa halkan ka dhacayso tartankan aan u jeedaan ee asaasi waa tartan laga qabto iskoolka Imaam Nawawi sida la inoo sheegay waxa loo qabtaa kobcinta afka Soomaaliga
waxaa farxad weyn ah inay caawa koob ka qaateen inay guusha qaateen gabdho waa wax lagu farxo in badan way jiraan in la dhaho gabdhuhu kuma fiicna waxbarasho balse waxaa farxad ah inay halkan ka soo muuqdaan gabdho kuwaas oo leeyahay waxay galeen kaalinta koowaad waxaan jeclaan lahaa in hal mar loo sacbiyo gabdhahaas waxbarashada markii la yiraahdo rag iyo dumar waa loo siman yahay balse qof kasta waa suu iskaga dhigo haddii aad adigu tahay qof wax baranaya ay ka go'an tahay gabar ahow wiil ahow jiis ahow wax kale ahow waxbarashada waxaa khasab ah inaad ka guulgaadhid balse haddii aadan adigu ahayn qof u soo jeeda marna kama miro dhalin kadhid hadalka badin mayo waxaan halkan uga mahad celinayaa maamulka jaamacadda Boosaaso oo na siiyay halkaan aan ku qabsanayna xafladda waxaan nagala jooga dad badan waxaan ka garanayaa anigu ustaad Cabdiraxmaan oo ku magac dheer Bilaal waxaan leenahay waa mahadsantihiin insha Allah waxaan rajaynayaa guushiina iyo dadaalkiina halka inaad ka sii wadi doontaan siiba gabdhaha waxaan kula dardaarmayaa mar waliba inaad ka soo muuqataaniin meel wanaagsan sad caawa uga soo muuqateen wassalaamu calaykum alxamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaa wal mursaliin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ana ku hadlay afka macallimiinta Imaam Nawawi maamulka iyo macallimiinta runtii waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh munaasabadan quruxda badan ee caawa halkaan wada joogno ee soo gunaanadaysa tartan aqooneed asaasi ee ustaad Geedi muddo hogaaminayay oo caawa in badan laga soo sheekeeyay macallimiintii hore hadalka iga dhameystay runtii macallimiintii ka qayb qaadatay iyo inta halkaan ka soo qayb gashay caawa runtii aad baan ugu mahad celinayaa anoo ku hadlay afka macallimiinta aad baan ugu mahad celinayaa sideedaba ujeedooyinka laga leeyahay waa laga sheekeeyay bahda aqoontu inay tartamaan wax badan bay soo kordhisaa maxaa dhacay dunida oo dhan baa waxay ku dhisan tahay tartan sanacada casriga ah baa lagu tartamaa oo meel baa laga soo bilaabay sanacadan caawa halkan aniga lagu duubayo iyo tan ku hadlayo qolkan quruxda badan waxa ka muuqda sanaco oo dhan taa gacanta ku haysataan tan lagu sameeyay sharaabka halkan yaala kuraasta dhammaan ma soo koobi karee waa tartan aadanuhu uu soo bilaabay xilli hore sanacadaas wuxuu ka soo bilaabay aadanuhu waxa la yiraahdaa marba aadanuhu soo maray farsamada ugu sareysay aadanuhu haysto waxay ahayd dhagaxa banaanka yaala dhagaxa caadiga ah ee noqonaya banaanka yaala ayay ahayd qofkii wax dilaya qofkii wax kala goynaya qofkii isdifaacaya dhagaxa inuu qaato ayay ahayd stone age baa la yiraahdaa marxalad dheer waa la soo socday waxa la soo gaaray waxa la yiraahdo iron age waa laga soo gudbay hadda waxa soo maray waxa la yiraahdo industrial age oo xagga farsamada waa laga soo gudbay hadda waxa la marayaa waxa la yiraahdo technology age baa la marayaa waa maqasan dhawaan ku wala hadda practical waa waqti ma umaleynaya roobkan darro ka sameynayna marka tartankiinaani wuxuu u yahay asaas iyo bilow u yahay inaad soo kordhisaan waxyaalo ku cusub aadanaha sida ay wayaashini ayooyinkiin maanta ay ugu cusub tahay telefoonada gacanta ku haysataan iyo kaamiradaha kan in jiilasha idinka dambeeyaan ay soo saaraan wax u horseedaysan tartankiina ina soo saaraan wax ku cusub wax idinka ku cusub marka runtii kama sheekeyn karo farxadda ay leedahay macallimiinta ka qayb qaadatay Imaam Nawawi bahda jaamacadda Boosaaso ustaad Bilaal iyo ustaad Maxamed Saciid runtii fursadan qaaliga ay nasiiyeen waa uga mahad celinayaa runtii lama soo koobi karo saan u faraxsanahay hadal badan oo dhihi lahaa waqti badan ma helayo waa ka xumahay laakiin waxaan ku soo dhaweynayaa xiritaanka barnaamijkan oo aan filaya in aniga bahdi wixii iga haboona intaan ka dhigi karay ay ahayd in idin hambaliyo anoo afka macallimiinta ku hadlaya macallimiinta ka qayb qaatay barnaamijkan iyo kuwaan ka qayb qaadan salaana u diraya bahda Imaam Nawawi
iyo jaamacadda boosaaso ustaad cabdina waa salaamaya kama tegin cawdha midaan salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamaya macallimiinta iskoolka imaam nawawi jaamacadda oo ay ka socdaan mas'uuliyiinta jaamacadda ardaydii reer nawawi halka iga muuqda oo forfor iyo isku jira dugsigii sare u badan sharaf weyn bay noo tahay maanta inaan xalfadan ka soo qayb galno kan forfor ahaan oo aad arkaysaan inaan kaalinta labaad aan ku fadhino run ahaantii ani ahaanta waxaan ahaa geedi intuu bilaabay tartanka waa ka soo qayb galayay weligeena ma qaadin intaa waa ka soo qayb galayay weligeena ma qaadin sharaf bay tahay maanta inaan kaalinta labaad ku dhamaysto oo aan waxayga halkaa kala baxo waxaan u mahad celinayaa mar labaad jaamacadda oo run ahaantii waagii sideedaadkeedina si wanaagsan noo habayse haddeerna waxa weeye wanaag weyn noo haysta dhanka xafladda foorfoorkana iyada dhankeeda aan soo eegayno run ahaantii guuxeenu wuxuu u badan yahay dhanka jaamacadda insha allah bidn illaahi kariimna say noo gar istaageen si kamidaan gar istaageen insha allah bidn illaahi waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar shanaadba aan u mahad celinayaa macallimiintayda ma dhihi karo macallimiin run ahaantii macalinka ugu yari wuxuu soo baray 5 sano xagga macallimiinta kalena ay 12 sano nawaawi aan dhiganayay barayeen maamulahayga oo 12 sano aan iskoolka soo dhiganayay anigoo aan waxba xariiqi karin baa la soo galiyay maanta anigoo professor oo hub siiro u tartamayo baan ka dhaqaaqaya marka sharaf bay tahay waxa weeye nawaawi inaan ka soo baxo nawaawi aan ku faano waxa weeye ma ka tagin laakiinse qolkii aan gali jiray kursiga un baan ka tagay laakiinse qulubteeda nawaawi markii kama baxayso waxa weeye waxa xasuusnaa doona waan ogaan doonaa waxay dhiman baa hal bil insha Allah ducadana nagu soo kaba waxa rajeeyna gabarba halkay joogta oo kaaliman galay ragii kale ee kaalimaha galay way joogaan waxaan leenahay bal bahashan dhankiina ka soo hurgufa waxa weeye markaan anagayna taagan tahay bahashiye insha Allah bin Ilaahi kariim khayr bay idin rajeynaya kan forfor ahaan waxa weeye aragtideen wax laga yaabtay ugu dambeysay inay haato dhiman mayno laakiin macnaha waa kala maqnaanayna aad waxa weeye aan idin halcaynayaa sharaf bay tahay ustaad geedi baan hal mid leeyahay ustaad geedi baan hal mid leeyahay waxa weeye geedi run ahaantii tartankiisu wuxuu ka soo bilowday waagi aan galay bees wax laga soo dhisay dhanka ardayda af Soomaaliga ka bacdina waxa loo gudbay in maadigii iyo af Soomaaliga la isku daro ka bacdi aqoon guud adduunyo maanta laga sheekeynayay waxa weeye xayawaan ka batay tartankaasi waxa weeye waxa aad u fara badan geedi waan sii dhiirigelinaynaa waxaan ka rajaynaynaa ardayda waxa la arkay Facebook aan waxaan ku arkay dad gaariyaal gaday geed uma malayno gaariyaal waxa weeyaan helayne bal odagan wasiir u sii dhaweeyna wasiirka aan u rabno aad iyo aad u mahadsantahay khayr bay rajayna sallallahu alayhi salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sidoo hore u sheegay saaxiibkay geedi iyo cabdi axmed labadaba waxaan idin ku soo dhaweynayaa idin leeyahay ku soo dhawaada goob kamida goobihiina aad tirsanayseen oo ah goobta jaamacadda Boosaaso laakiin magacaas anagu jaamacadda Boosaaso ma qaadan waxaan leeyahay kulliyadda caafimaadka jaamacadda Boosaaso u dhiganayo la egnahay qayb lamid ah ayaan nahay haddaan idin la kaftamo waa sida Puntland oo kale ay federaalka uga taagan tahay ayaan jaamacadda Boosaaso uga taaganahay waa ka xumaad ka raali gelinayaa in class aad xafladda ku qabsanayno oo aynu hoolkii iyo qaybaha la midka ah qaybta kale aynu ka isticmaalnaa halkani waxa ay ka mid tahay qaacadka muxaadarooyinka lagu qaato laababkii ay ardada ku dhiganayeen ee kala duwanaa skill labkii medicine labkii medical lab nutrition lab iyo computer lab waxa laga helay dhammaan fasaladii ardada wax ku baranayeen oo aan loogu talagalay jaamacadda Boosaaso qaybteeda xarunta caafimaadka inta markaa uga gudbo soo dhaweynta ay ku soo dhaweynayo jaamacadda ay la mid tahay institutionkeena aan ka imaanay faraca weyn Nawaawi si la mid ah ay jaamacadda Boosaaso waxay idin la tahay meel aad idinku ku access gareyn kartiin wax walba aad waxbarasho ha noqoto barnaamijyo aad qabsanaysaan booqasho horumar aan idinku imaadana waxaan idin dhahay subaxii bareega soo doonto jaamacadda qayb ka soo qayb gala oo meheradaheeda soo fariista ku shaaha saas u dareentaan inay tahay xarun idinka idin xisaabsan
waxaa farxad ii ah inaan shantan kulan waxaan u malaynayaa inaan kii koowaad inaan ka maqnaa inta xafladood ee asaasi lagu soo gabagabeynayay waxaan fursad u yeeshay inaan ahaa qof member markaas joogo ama kelmad inaan yeesho ama inaan wax ka agaasimayo asaasi suu ustaadka noo sheegay asal waxay ahayd afka Soomaaliga in lagu ilaaliyo luqadda ummadii markii laga hadlayo waxaa la yiraahdaa ummad horumarkeeda iyo dadnimadeeda iyo jiritaankeeda waxaa lagu ogaadaa afkooda saad ogtiin dunida waxaa la sheegaa luqadda Ingiriiska luqadda Carabiga luqadda Faransiiska luqadda Carabiga waa luqad islaamka oo dhan u wada ilaashanaya annaga aan ka ognahay dadka ilaalinayo laakiin gumeystayaasha say luqadooda u horumariyaan wadamada ay qabteen waxay ku khasbeen inay ku hadlaan luqadooda maxaa yeelay marka afkooda lagu hadlayo waxaa fudud inay si fudud wax kugu sheegaan si fudud inay kugu gumeystaan gumeysiga haddii oo dhul qabsashada aan dadka lagu qabsan waxaa lagu qabsan karaa gumeysiga thaqaafada dhaqankooda inay qaadatid maxaa yeelay dhaqankay ummadi leedahay waxaa ka tarjumo afkooda asaasi waxa ay ahaa meel lagu waardiyeeyo luqadda sidoo kalena ardayda maadooyinka badan ay dhigtaan waxaa dhici karta marar qaarkood in tartamo suuragali waayaan laakiin asaasi wuxuu ahaa mid suurtagal ah ee sanad walba dhacay waxyaabaha aan aadka u xusi karo waxaa ka mid ah intii aan ustaadka oo igu casumayay ama aan ka qayb galayay in uu sanadba sanadaha ka dambeeya asaasi uu ka sii xoog badnaa oo hadda aan dareemayno sawirka waxaa ka muuqda inay goobada 90ka inay buuxin rabto taa micnaheedu waxaa waaye big meesha ugu sarreysay inuu marayo waan hambalyeynaa ka jaamacadda Boosaaso ahaan in aan aragno ardayda ku tartamayaan aqoon tartanka aqoonta oo lagu tartamay waxay ka mid tahay waxyaabaha kobciyo aqliga maskaxda dadnimada ardada saad u jeedin waa meesha waxa ka muuqda arday aad u tiro badan oo dugsiga Imaam Nawawi dhigtaan in group saddex inay guuleystaan taas maxay tahay aqoon iyo aad idinku leedihiin ay halkan ku soo gaartiin mar kale iyo mar labaad mar sax waxaan dilayaa macallimiinta saaxiibaday iyo ardayda iyo dhammaan gudoomiyihii tartanka asaasi ku soo dhawaada jaamacadda Boosaaso waxyaabaha kale ka baxsan saaxiibkay Saciida joogo Saciid Axmed Cabdi baan insha Allah u daanaya haduu Ilaahay raado Cabdi Maasante iska jeclaan jiray bariga hore qaaciga iyo waxa soo marar ba ku yar tuuran jiray haddaan fanaan noqdo idinka ka masuula waayahay waxa leedahay hello 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 uriyahe wariyaa hirani daweyn mahalabsado hello 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 hirani daweyn mahalabsado sidii dhugdhugley dhul dheer maraysa dhawaaqayga loo dhagaystaye sidii dhugdhugley dhul dheer maraysa dhawaaqayga loo dhagaystaye nin daar ku jira daruur ma arkee ileen xalayro kibada nin daar ku jira daruur ma arkee ileen xalayro aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa iska noqonayaa mid baa wuxuu yidhaha maalin dhaweed anuu heesiintu arkay wuxuu yidhahday Soomaalidu waa dadka kaliya oo qof kasta oo hayo shaqo aantiis ahayn marka fan baa lagu talagalay ka wada amaleen السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم وفقنا لمن تحبه وترضاه انت كبعدي وكفتوي يايو سؤال واحد هذا عرب بان هبي هذا marka caawa awal shaki way iga jiray caawa iga baxday gabadha halka soo istaagtay marka nashiidada inoo tirinaysay arab haday noqoto ma huwa inay tagtay laakiin waxaan badinayaa inaysan tagin lahjada say ula qabsatay marka arab baynu nahay iyadana aad baa ugu mahadcelinaya inta ka bacdi maamulka jaamacadda ustaad Bilaal iyo macallimiinta iyo maamulka iskuulka Imaam Nawawi Garowe waa salaamaya ardadan aad iyo aad baan u salaamaya inta ka bacdi waxaan rabaa dhowr arrimood oo yar yar inaan isdul taago arinta koowaad waxa weeye
waa ustaad bilaal waxaan rabaa inaan kelmad yar ka idhaahdo soomaalida waxay tidhahdaa haddii lagu sheelana waa la is sheegaa haddii lagu sheeka noocaas adu sheelidu badan bay inaan kelmad ka idhahdaan rabaa xiriirka ka dhexeeya iskuulka iyo jaamacaddana waxaan rabaa inaan kelmad ka idhaahdo barnaamijka asaasi isagana inta ilaahay iga solansiiyo inaan wax yar ka idhahdaan rabaa haddaan ku horreeyo ustaad bilaal horta waa hogaamiye hadduusan hogaamiye ahayn halkan u fadhiisan lahaa ustaad bilaal waa hogaamiye waa hormuud hogaamintu ma aha qofku inuu mansab sare gaaro mansab sare wax kastaa ku gaari kartaa adeerkaa baa ku geyn kara mar baa fursadu kuu soo bixi kartaa laakiin micnaheedu inaa hogaamin tahay maaha kama hadlayo bilaal inuu yahay maamulka jaamacadda qaybta caafimaadka inuu yahay kama hadlayo taytarkiisa kama hadlayo laakiin waxaan ka hadlayaa shakhsiyadiisaan ka hadlayaa ustaad bilaal idinkuna waa taqaaniin waana jeceshihiin intii aan ka arkay ardadiinna iyo intii aan ka bartay iyo macallimiintiinnaba ustaad bilaal waa nin isu hayn leh oo maamulkii iskuulku ka yimi kan hadday noqoto asxaabihii kale oo uu lahaa hadday noqoto dhanka isu haynta dadka iyo xiriirintooda waa shaqsi ku wanaagsan wey dhanka maamulka waa shaqsi ku wanaagsan wey haddeer waa joognay anigu bilaal waa booskayga waa aragtaan ardadu ku dhex jiraa hadda marka ustaad bilaal allaha sharfo sidaa u jeceshihiin baan rabaa inaan ka markhaanti kaco in maamulka jaamacadda iyo ardayda jaamacadduna ay u jecel yihiin inuu halbowle yahay inuu macallinkiina yahay waa idin sharaf weeye inuu shakhsiga muhiimka ah uu qayb ka ahaa barbaarintiinnii oo ka mid ahaa barayaashiinnii haddaan intaa kaga imaado dhanka xiriirka iskuulka iyo jaamacadda runtii markhaanti madoonta may dhahaan soomaalidu waxaa idinku filan halbowlayaashii ardadii sanadkii dhoweyd ka soo baxday sahanka waxaa la yidhaha horta sahanka cid taqaanaa bay idinku jirtaa mise magaala u badantihin waayada dambe magaala u badanayne sahanka qofka sahmiya waxa sahmiya waxa weeye sahanka been kama sheego sahmiyuhu reerkiisana meel xun uma raro dhanka aqoonta activity-ga haldoorka iskuulka sanadkii dhoweed ka soo baxday oo anigu aanan aqoon burburan u lahayn wakhtigii hore halbowlayaashoodii waxay joogaan jaamacadda boosaaso waxayna yihiin dadka ugu macnaha iyo miisaanka badan ardayda jaamacadda waxaan filayaa inay sahan idinku filan yihiin inaysan ku iman baan u malaynayaa nin jeclaysi waxaan waa waxbarashadu walaal male ehel male ee xaysi male waxaa ku soo ifbaxay oo qofku uu ka tashanayaa bulshadaas meeshuu kaga biiri lahaa intaas waa la soo dhisayey wuxuu rabaa waxbarasho tayaysan intii hadda ustaad geedi inoo sheegayay wixii lagu tartamayey oo sancada ahayd meel uu bulshada kala qabsaduu rabaa marka meel eexa kuma geli karo wax kale kuma geli karo laakiin wuxuu ku qiimayn karaa wuxuu isagu doonayo iyo meesha uu ka helayo waxaan badinayaa oo daninayaa in boqolkiiba 90 ardadaasi ay ku yimaadeen xog ay baareen laakiin aysan ku iman ee xaysi aysan ku iman waxaan rajaynayaa insha allah meesha aan ka soconno meesha dadka wanaagsan idinka horeeyaan ustaad bilaal idinka horeeyo ardayda idinka horeyso aniguna aan ka arkay ardadeedana ka mid ahaa maantana ay ii sahashay inaan ka mid noqdo maamulkeeda in ay tahay meel muhiima insha allah waxaan rajaynayaa inaan isugu nimaadno kala xog qaadanno wakhti wada qaadanno xog la helyaaba tala la hel bay dhahdaa soomaalida soo ma aha juuska idinkaa iska leh jaamacadaha dalka dibadda hal mid oo iga talo waxaa iga tala ah jaamacadda doontid bagal laakiin jaamacadaha dalku digriigaaga koowaad waxay ka fursad badan yihiin inaad dibad u aadid waxaad baranaysaa
wixii xaggaa lagu baranayay oo afkaaga hooyo ah ku heshay waxaa baranaysaa waxa la yidhaahdo waaqicuna waa waxa dalka hadda in joogno oo Soomaaliya siiba Puntland hadda lagu kala tagay waxaa og tahay shaqooyinka bannaan waxaa og tahay cidda ku riixi karta waxaa og tahay sida meesha laga soo gali karo laakiin goorta aad timaadid haddii linkigaas lumo waa adag tahay inaad saa u jaan qaadid waayo sababta waxaa u baahan tahay aqoonta aad soo baratay meel aad ku soo bandhigtid fursadda marka anoo og laba arrimood waxa la yiraahdo waxa jira accessibility iyo availability waalidkeen boqolkiiba 80 in ilaahay u nimceeyay Allah si barakeeyo laakiin boqolkiiba 80 ma awoodaan waana ku culay haday awoodaan waa ku culays in ardada aad u diraan waalidkeen culays inta ka badan 12 sano baa wax la idin soo baraayay culays la idin soo saaray haddana culays way jiri doonaa laakiin waalidkeen culayska ka yareeyay oo fursadahaasi way jiraan jaamacadahana wax tigriigaaga kuwaad kugu filan waa lagu bartaa hal caqabad baa jirta idinkaan isbari kara anigu arday jaamacada ka baxay baan ahay waliina dibad ma aadin laakiin hal caqabad baa jirta halka caqabad oo jirta waa luuqadana meel sida biskutka looga soo xaabsado oo dal la yiraahdaa ma jirto dalka doonta tag inta iska bartaa ku leedahay ina waqti gelisaan iyada cilmiguna luuqadda iyo cilmigu way kala duwan yihiin cilmiga qofka dibadda ka yimaado iyo qofka jooga buuxa haqa marka idin sheego laakiin luuqadda qof walba intuu ka gaaro xawaare baa jirta dibadda aad waa dhici kartaa environment-ku inuu ku caawiyo oo meel lagaga hadlayay oo aadan xanjo gadan karin wax kala gadan karin inay ku caawiso way dhici kartaa laakiin luuqaddu ma waxaynu baahideenu oo dhan ku xirno oo dalka uga baxnaba ma aha 6 bilood baa aadi kartaa shaqo adoo haystaa 3 bilood u bixi kartaa waa isdhisi kartaa yeynaan isku qafilino fursad kale heli karno marka waxaan rajaynayaa jaamacadaha dalka booqda juuskiina idinka leh laakiin noo imaada oo arka waxa hayno markaana talo aday kula jirtaa jaamacadahana taga xog ka qaata annagana noo imaado annaga noo bato insha Allah bidna ilaahay kariim aad tana waa iga inahaas Nawawi imaam Nawawi garowe horta waxa jirta wax lagu cabiro oo halbeeg haduusan wuxuu lahayn wax halbeega oo wax lagu cabiro way luntaa jihadu waa tacliinta iyo hoggaanka imaam Nawawi wuxuu xaqiijiyay cidii maamuleysay iyo cidii ka soo baxdayba inay hoggaanka Puntland iyo kan Soomaaliya saameyn ku yeeshaan madax meel ka sareyso la salaaxa ma jirto maanta markaanti nool baa u nahay Saciid Cabdullaahi Dini waa asaasiyaasha iskuulka imaam Nawawi micnihii uu ku shubay ardadii ka soo baxday baa ardada lagu shubaa waa iskuulaadka lagu soo kabtay markii dalkeenu burburay aniga shakhsi baan ahay Saciid baa la yiraahdaa oday adeerkayga wiil adeerkayga ka baxay oday maaha dadkii intan jaamacadda dhiganayay iyo intii aan secondary-ga dhiganayayba isoo kaabay waa marka imaam Nawawi su'aasha idinka idin weydiinaya dalka ma anfacday mise ma anficin jawaabtu waa anfacday qiimaha iyo miisaanka horta leeyahay anigana jacayl gaar ah horta igu jira aniga imaam Nawawi kuma soo bixin gambool baan ka soo baxay laakiin dadkii aan barto 3 sano ugu dambeysay dadkii ugu saameynta badnaa ugu macnaha badnaa ugu miisaanka weynaa baan ka bartay Nawawi Ali Ganda baan ka bartay maxaad mawlid baan ka bartay gabdho badan baan ka bartay oo Muniiro ay ka mid tahay halbowle ah way badan yihiin dadkaas waxay ahaayeen dad aan tartan ku jirin xul ah bay ahaayeen Cabdiraxmaan baa ka mid ahaa Matani Cabdiraxmaan Cadaawa ka mid ah halbowleyaal adag baa joogo oo aan iskaranayna marka idinkana waxaan idinka rajaynayaa inta ka badan kole qaybtiina arkay oo qofka de miisaan waa saaraysaa dad macna loo miisaan la halka iga muuqanayay inta ku soo gunaanadaya mid waa ka cudur daaranaya meeshan waxa fadhiya macallimiinteedii waxa fadhiya saaxiibkii Bilaal in la yiraahdo xaflad soo xir adaa maamulka ka tirsanay runtii aniga ima farxad gelinayso iyo qiiro gelinayso waxay u qiiro gelinaysaa dad iga mudan ba halka jooga iyaga ay ahayd inay xafladda soo xiraan iyaga idin soo barbaariyo waqti badan oo dheer idin la soo joogay
anigu waxa laga yaabaa qofku inuu sheegto ceeb maaha abilities maanta intaan xisaab qaato ama chemistry qaato ama caano iyo tarbiyad qaato idinma dhigi kareen capacity-ga mali laakiin kuwa dhiga oo halka jooga anigu waa iga mudan yihiin miisaanka iyo micnahaas bay horta waxa way leeyihiin ustaadka aad iyo aad baa uga mahadcelinayaa barnaamijka asaasi waa afkeena hooyo afkeena hooyana waa af qani ah laakiin waayada ugu dambeysay waxa ku jirta inuu xoogaa sii yaraanayo waxyaalo luqadaha kale ay nagu badanaya inaga interestigeeni dadkiina ka waaweynaa saameynta xoog aad uma saarin ma jirto luqad aan Soomaali ahayn oo dhihi karta maanta shalay bari saadama saakun sida taal todobada ayaamood ba sheegi ka dhaamay jidho English waa after iyo before Arabigi waa qani waa luqad la yiri waxba ka sheegina laakiin qabla iyo bacda ma ku jirtaa mise kuma jidho waa laga hormarinayaa marka waxa jirta marka Soomaaliga laga hadlayo iyo dhaqanka waxa la dhahaa dadka laga soo farcamay Soomaalida ku jirta iyo dad jooga dalkan la yiraahdo Australia marka af Soomaaligeenu wuxuu waayay hiil dadkii sida u buunbuurin lahaa oran lahaa war waa kii laga soo farcamay dadka bari lahaa baynaan helin barnaamijyada laga kubcinaya maadaama ku yahay waa ku faraxsanahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala